habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada aan caawiydin hayana waxa kamida Puntland oo dhacday saldhigyada ugu waaweynaa ee hubka ee kooxda Daesh uguna tagtay hub aan noociisa lagu arag guud ahaan Soomaaliya iyo qodob kale oo ah Axmed Madoobe oo weerar culus ku qaaday dowladda federaalka Soomaaliya weerarkaas muxuu yahay warbixinteena ayaa ku arki doontaa balse marka hore wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhaxdo muuqaalka like noo saarto gambalelkana furato si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha ayaan halkan ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo Puntland oo ku jirta wajiga saddexaad ee howlgalka Hilaac ee lagu ciribtirayo kooxda argagixisada ee Daesh ayaa guulo waaweyn ka gaaraysa marka dambaysa kooxda Daesh waxayna ciidamada ku sii siqayaan magaalooyinka fogfog ee buuraleyda calmiskaada ee gobolka Bari halkaas oo ay kooxdu ku dhumaalaysanayso ciidamada Puntland oo baadi goobaya kooxda Daesh oo la yahay meel jaani cirib dhigeen ayay ciidamada Puntland waxa ay sheegeen inay kooxdu wada firxad noqotay ayna ku dhumaalaysanayso buuraha fogfog ee gobolka Bari marka laga reebo xubno yar oo wali isku dayaya inay iska difaacaan dagaalka culus oo ay ciidamada Puntland kula jiraan dhanka kale ciidamada Puntland waxa ay kooxda Daesh ka qabsadeen shidaal saldhigyo iyo guryo ay kooxdu ka dhisatay dhulka hoostiisa sidoo kalena ciidamada Puntland ayaa kooxda ka qabsaday in ka badan 200 oo gantaal oo ay kooxdu rabtay inay ku weeraraan magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bariba madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo marka hadlay gantaalada ay ciidamada Puntland ka qabsadeen kooxda Daesh waxa uu sheegay in ay kooxdu rabtay inay ku weeraraan magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bariba madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay kooxdu rabtay inay balaariso deegaanada ay gacanta ku hayso si ay kooxdu u hesho dhaqaale ka badan midka ay hadda ka hesho gobolka Bari waxa uu sheegay in hadii aan dagaalka hadda lagu qaadin kooxda Daesh ay qabsan lahayd dhammaan gobolka Bariba iyo sidoo kale Puntland oo dhan saraakiisha hogaaminaysa howlgalka Hilaac oo soo bandhigay gantaaladan ayaa sheegay in kooxdu gacantooda ay ku sameysteen gantaaladan inkastoo wali aysan dhameystirin balse waxa la yaabay sida ay gantaaladan u sameeyeen sidoo kalena waxa la sheegay inay saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan iyo sidoo kale shacabka Puntland ba ay xaqiiqsadeen in Puntland duulaan lagu soo ahaa kadib markay arkeen gantaalada iyo qalabka casriga ah oo ay kooxda Daesh ay ku diyaarsanaysay buuraha calmiska ee gobolka Bari ee Puntland kooxda Daesh ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin ama ay hogaamiyaan dad dalalkoodii dambiye ka soo galay iyo dad kale oo iyagu xabaabiyeen balse waxa la sheegay in kooxdan ay yihiin koox dalal caalami ah ka soo dagaalamay falal argagixisanimada ka soo geystay oo Mareykanka iyo wadamada kale ee caalamku uu raadinayo dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo bixiyay wareysi dheer ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha doorashooyinka ee dhaliyay khilaafka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa shaaca ka qaaday in doorashada ay u afduuban tahay kooxda filla Soomaaliya joogta waa isagu sidoo hadalka u dhigay isla markaasna ay kamid tahay waxyaabaha keentay inuu ka baxo golaha wada tashiga qaranka Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hor yimid dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka isaga oo sheegay in wax kalsooni ah aanu ku qabin guddiga ay magacaabtay dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hadda ka dhaxeeyo khilaaf siyaasadeed oo aad u culus kuwa guddiga dhexdooda ayaa isog inaysan wax sharciyada ah haysan waa Cabdalla Shideeye waxa ay wadaanina wax Soomaalidan oo ah ma ahan waa waxa ay shirkadu leedahay ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlay doorashooyinka qof codka ah ee uu wado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Axmed Madoobe oo wareysi laga qaadayay waxa la weydiiyay matalaada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay inuu yahay nin ku biiray shirkadu maamulo Xasan Sheekh oo ku ciyaaraysa dowladnimada iyo qaranka Soomaaliya